Waxay ahayd munaasabadan loo kala harin. Goobta waxaa wada fadhiyay labada reerood. Waa reerka xagga wiilka ka socday iyo sidoo kale waxgaradkii matalaya xagga gabadha. Waxaa howlkii ay ku sugnaayeen wada buux dhaafiyay hadiyada qiimo badnaa, isla markaana isdaba joog ahaa kuwaasoo la keenayo goobta. Boorsooyin ay ku jiraan waxyaabo qiimo badan oo lamaanahan loo soo xulay ayaa goobta la keenayay. Farda jirkooda garaafa aysan ka muuqan oo xanaanadooda waqti badan lagu baxshay ayaa mar qura la keenay howlkii ay xafladda meherka ka socotay. Wiilal labiskooda aan waxba laga soo tagin ayaa fardaha dusha sare ka saarnaa, waxaana ay u muuqdeen kuwo aad u yaqaana kaxaynta fardaha. Kaba sii daran agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay u leedahay ayaa goobta lasoo tubay. Quruxda goobta ka muuqatay iyo sidoo kale dadka qiimaha badnaa ee munaasabadda meherka walaasheen Hooda Maxamed Nuur iyo sidoo kale saygeeda Maxamed Cabdulaahi soo camiray ayaa u muuqanaya kuwo aad kaga helay qaabka loo soo qabanqaabiyay munaasabadda. Ninkay u dhexeysa Hoodo ayaa la tilmaamayaa in muddo badan xiriir uu kala dhexeeyay, isla markaana ay ahaayeen lamaane isdoortay oo aysan cidna isku doorin labadooda. Maxamed oo waa sayga Hoodo isla markaana ka soo jeeda dhulka daraawiishta, waxa uu hantiyay gabar ka diyaarsan xagga diinta, xushmadda iyo sidoo kale qadarinta bulshadana aad ugu wanaagsan. Dadka aqoonta u leh Maxamed waxay ku tilmaamaan ruux hanti leh isla markaana xambaarsan gacan furnaan aan lahayn hagrasho. Goobta meherka uu ka dhacay oo ahayd Hargeysa waxaa aad loo adkeeyay ammaanka maadaama munaasabadda ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland. Sida aan warbixinadeena hore ugu baahinay, Hooda Garees ayaa meherkeeda uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaa laga bixiyay 20,000 oo dollar oo yarada iyo sidoo kale 30 milyan oo shilin gabaati ah. Hooda oo gabayo hore u tirisay ayaa gabayada laga hayo waxay u badnaayeen kuwa jecel, badina waxay gabayadeeda ku soo lifaaqi jirtay mustaqbal ifaya iyo sidoo kale ruux wanaagsan in Alla uu haleeshiyo. Allana maanta riyadaas waa uu rumeeyay gabadhan. Fariinta meherkeeda kadib Hooda Garees bulshada ay la wadaagtay ayaa waxay u dhaceysay sidan: Ilaahay baa mahad leh, Soomaali oo sharaf leh naga beeray, aniga iyo sidoo kale Maxamedkayga. Waxaan si guud ugu mahadcelinayaa cid kastoo noo soo sharaftay, si milga leh, culimmadii, madax dhaqameedkii, siyaasiyiintii, bahdii garsoorka, aqoon-yahankii, saxaafaddii, dhaqaatiirtii, miidii iyo sidoo kale foolaadkii bulshadu doorka mugga lahaa ay ka qaateen yagleelka qoyskayga. Si gaara dhalashadeeda qaaliga iyo dhexdinteeda qiimaha badan, duriyadda iyo daraawiishta oo waalidkaygu ugu horeeyo, hogaamiye Raxmaanku hayna barakeeyo. Fariinteeda ayay intaas ku soo koobtay gabadhan. Hooda Garees waxaa fariimo kala duwan oo hambalyo oo isdaba jooga isla markaana aan dhammaad lahayn gaarsiinaya boqolaal qofood, dad iyada si gaar ay u taqaano, kuwa taageera iyo sidoo kale kuwa jecel horumarkeeda iyo sidoo kale guusheeda gabadhan. Mar kale waxaanu leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.